magaalada Baydhabo dadku waa ay ka barakacayaan doorasho ayaana la warinayaa in maalinta berita ah ilaa maalmaha soo aadan inay ka dhaceyso sidoo kale digniintii ay direen hogaamiyihii koonfur galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareenna waxay u muuqataa inay ka dhaqan geliso qayb ka mid ah magaalada Baydhabo cabsi xoogan ayaa jirta ciidamo hoyeegan ayaa la geliyay oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan dhinaca galmudugna qoorqoor ayaa la wariyay in uu aadayo wadanka Djibouti iyada oo waliba xaaladda hadda siyaasadeed ee galmudug ka jirtaana ay tahay mid cirka isku sii shareeraysa ciidamo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa la warinayaa gaar ahaan qaybta 27aad ilaa 12aad ba ay tageen gudaha magaalada Dhuusamareeb taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkaasi gaaraya wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed Muqdisho oo banaanbaxyadii loo diyaar garoobayo shacabka qaar oo degmada Daynile qaar kamid ah ka bilaabay ama qayb kamid ah ka bilaabay waxa uu eeg banaanbaxyo ay hordhac markaasi ku sheegeen inay u yihiin kuwa birito dhacaya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbinaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ta markaa kugu horeysay aad soo booqatana nagu soo bir oo channel-keenan subscribe dhaho qaybta hoose ee faaladana aragtiina nagu wadaaga mar kale soo dhawaada saaxiibayaal waxaanu ku bilaabeynaa koonfur galbeed Soomaaliya sida aad badankiin ka war haysaan halkan aan ku baahinay waxa jiray digniino ay soo saareen ciidamadii daraawiishta ee koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo ku sugnaa banaanka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed ciidamadan ujeedada ugu weyn ee mudaharaad ama iraade digniintan ay u soo direen waxa ay tahay in laga fogaado goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcad iyo sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed ee Soomaaliya ujeedka ugu weyn ama warka ugu weyn waxa uu ahaa sida uu ku dhaqan gelayo amarkan iyo digniintan iyo waliba ogeysiiskan ka soo baxay ciidamadii daraawiishta ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ee taageerada buuxda u ahaa madaxweynihii awoodda looga saaray magaalada Baydhabo ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen laakiin waxay u muuqataa inay dhaqan gashay digniintaas iyo sidoo kale guud ahaanba wargelintaasi sidoo kale shacabku waxa looga digay inay ka agdhawaadaan meelaha ay ku sugan yihiin ama lagu qabanayo doorashooyinka waxa ay dawladdu ugu yaatay qof iyo cod oo la filayo in lagu qabto maalinta berita ilaa maalmaha soo aadan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed ee Soomaaliya shacabka sidoo kale waxa loogu baaqay inay ka fogaadaan goobaha kale ee cayaman ee waliba bartilmaameedka ah sida ay ciidamadu digniinta ku soo saareen iyadoo taas laga duulayo shacabku waxa ay maanta bilaabeen inay ka baxaan meelihii ay ku sugnaayeen ee waliba xaafadahooda ahaa ee guryahooda ahaa muuqaalada iyo sawirrada halkaasi ka imaanaya ayaana muujinaya gawaari kuwa kareetooyinka ah mootooyin bajaaj ah iyo sidoo kale gaariga loo yaqaano caasiga iyo kuwa kale ee dadka barakac ah lagu qaado ayaa buux dhaafiyay qayb ka mid ah xaafadaha waaweyn ee gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah koonfur galbeed taasi bedelkeed isla ciidan kale oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya iyo kuwa booliiska gaarka ah ee Haramcad ayaa xaafadaha qaar tagay iyaga oo dadka ku wargeliyay inaysan bixi karin oo gudaha xaafadahaasi ay si joogaan oo wax dhibaato aysan jirin haddii ay dhacdo in weer lagu soo qaadana ay difaaci doonaan laakiin dadku taasi ma aysan dhageysan waxaana bilowday barakac halkaasi ka jira oo xaafadaha qaar banaanka ayaa looga baxay si ay dadka kaga fogaadaan dhibaato ka soo gaarta aan iraade dagaalo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha maamulkaasi koonfur galbeed si gaar ah magaalada Baydhabo waxa sidoo kale dadku la sheegay inay degayaan banaanka magaalada iyada oo halkaas isla ciidankii dawladda ay ku sugan yihiin oo halkaas ammaankooda laga ilaalinayo dadka shacabka laakiin taasi ma dhici kartaa koonfur galbeed gaar ahaan ciidamada maamulkaasi oo waliba hore u taageersanaa madaxweyne Laftagareen ayaa ku hanjabay in goobaha ay bartilmaameedsan doonaan ay kamid tahay goobaha lagu qabanayo doorashooyinka goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska gaarka ah ee waa Haramcad iyo kuwa militariga Soomaaliya dhammaantood waxay noqdeen saacadihii la soo dhaafay kuwa si weyn loo hadal hayo iyadana ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee digniintan iyo sidoo kale maalinta doorashada isku soo aadiyay horeyna madaxweyne Laftagareen ayaa ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee koonfur galbeed ee Soomaaliya ma Laftagareen ayaana dib ugu soo laabanaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah koonfur galbeed wax walba ayaa suuragal ah Aadamadoobe ayaa dhinaciisa isagana olole doorasho ka wada iyo xubno kale oo uu ku jiro madaxweynihii koonfur galbeed Shariif Sakiin waxaana magaalooyinka ama xaafadaha qaar lagu arkayaa ciidamo aad u tiro badan oo dhinacyo kala duwan isaga kala yimid kuwaasi oo digniinta iyagana loo dirayo ay kamid tahay inay ka fogaadaan dadka shacabka ah dhexdoodana ka baxaan maadaama ilaa iyo hadda aysan jirin warar kale oo rasmi ah oo ka imaanaya dhinaca koonfur galbeedna haddana digniintaas ayaa noqotay hadafka ugu weyn iyo sidoo kale hadalhaynta ugu weyn ee waliba ka taagan gudaha magaaladaasi Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka koonfur galbeed ee Soomaaliya intaas aynu ku dhaafno Baydhabo
iyo deegaanada kale ee koonfur galbeed iyadoo ciidamadii madaxweyne lafta gareen ay ku soo dhawaadeen gudaha magaalada iyo dagaallo laga cabsi qabo iyo cabsi xoogan oo caawa ka jirta meelo ka mid ah magaalada Baydhabo wararkaasi oo idilna wixii ku soo kordha barnaamijyadeena wararkana dambe ayaan ku eegi doonaa ee Dhuusamareeb aan dib u eegno magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa weli ka socda dhaqdhaqaaq ciidan iyo mid siyaasadeed oo aad u xoogan halkaas waxa ay noqotay qodobka ugu weyn ee saacadihii la soo dhaafay si weyn loogu hadalhayo masraxa siyaasadda waxaana siyaasiyiin badan oo deegaanadaasi Galmudug ka soo jeeda ay arinta khilaafka ah ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxweyne qoorqoor ku tilmaameen in ay tahay weji kale oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga furmaya dhinaca deegaanada Galmudug si gaar ah madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyadoo ciidan meel walba la isaga kala keenay Cadaado Guriceel Mincaabud Waaq ilaa iyo deegaano badan ciidamadii ku sugnaa ee nabad sugidda ahaa dhammaantood loo soo daabulay magaalada Dhuusamareeb ayaa haddana waxaa soo baxaya ciidan kale oo hor leh oo militariga Soomaaliya ka tirsan inay ka soo kala baxeen Hiiraan Galgaduud Mudug ilaa iyo deegaano kale oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan taliska qaybta 27aad ayaa ciidankii ugu badnaa waxa ay ka soo direen gobolka Hiiraan iyaga oo socdaal dhinaca lugta ah ku galay xuduudda labada gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud waxaana la warinayaa inay gudaha u galeen saacadihii la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta kumeel gaarka ah koonfur galbeed ee Soomaaliya iyadoo aanan la ogeyn ujeedka ugu weyn iyo sababta ugu weyn ayaa haddana waxaa la warinayaa ciidamadan inay kaalin weyn ka qaadan doonaan soo dhaweynta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku wajahan maamulkaasi Galmudug si gaar ah gobolka Galgaduud magaaladiisa Dhuusamareeb iyadoo halkaas ay ka taagan tahay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ee muddo xireedkiisu dhamaaday ee Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xilli kasta ayay wax isbedeli karaan mana jirto ilaa iyo hadda war rasmi ah oo laga heli karo madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug laakiin xogo iyo warar kala duwan oo hoose oo ay dad shacab ah noo soo dusiyeen iyo kuwa siyaasiyiin ah ayaa tilmaamaya in Qoorqoor uu u safrayo wadanka Djibouti gaar ahaan magaaladaasi Djibouti iyadoo halkaas ay mas'uuliyiin kala duwan kaga qayb galayaan caleemasaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar labaad isku doortay markiisa saddexaad isku doortay gudaha magaalada Djibouti iyadoo halkan ay markaasi ama wararka sheegayaan in Qoorqoor uu u tagayo dhinaca Djibouti dhaxdhaxaadin in uu Ismaaciil Cumar Geelle ka dhex sameeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor khilaafkan ayaana cirka isku sii shareeray saacadihii la soo dhaafay siyaasiyiin badan ayaa falanqeeno kala duwan ka bixinayay taasi oo ku aadan in Galmudug ay ku adkaan karto dagaalka siyaasadeed ee hadda ay sida tooska ah ula gashay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halka dowladda dhexe ee Soomaaliyana suuragal ay ku tahay ama u tahay inay ku guuleysato dagaalkan maadaama horay awood ciidan oo aad u xoogan oo ay u adeegsatay koonfur galbeed ee Soomaaliya si degdeg ah looga saaray madaxweyne lafta gareen magaalada Baydhabo laakiin hadda ay u muuqato in mar kale uu soo laba kacleeyay Qoorqoor ma wadadii lafta gareen ayuu mari doonaa ama waxa uu noqon doonaa libaaxa mar kale ka talin doona maamulkaasi Galmudug si gaar ah Dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee maamulka Galmudug la isugu yiraahdo saraakiisha ciidanka ayaa kulan degdeg ah saacadihii la soo dhaafay la tilmaamay in la isugu yeeray gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ilaa iyo Muqdisho iyaga oo si toos ah marro kala duwan u kala bixinayay waxaana ciidanka la isaga kala keenay degmooyinka hadda aan soo xusnay dhammaantood ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Dhuusamareeb qaar ka mid ahna banaanka magaalada ayay joogaan waxaa sidoo kale jira in maalinta berrito ah uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagayo gudaha magaaladaasi Dhuusamareeb ee xarunta kumeel gaarka oo xarunta dowlad goboleedkaasi Galmudug iyadoo oo waliba saraakiil kale ay markaasi la socdaan oo deegaan ahaan ka soo jeeda maamulkaas waxaa la wariyay taliyaha ciidanka in uu xilka u soo kala wareejin doono taliyihii dhawaan ay dowladda federaalka Soomaaliya u magacaawday maamulka Galmudug iyo taliyihii hore oo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor mar kale uu dib u soo magacaabay laakiin arrimahaasi oo idil waxaa la warinayaa in marka laga soo tago ay jiri doonaan howlgallo toos ah oo lagu doonayo in guud ahaanba Dhuusamareeb gacanta dowladda si rasmi ah ay u soo gasho maadaama hadda ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah magaalada ciidamo si gaar ah u taageersan madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo qaarkood ka yimid baxdo ilaa iyo deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi Galmudug wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal guud ahaan arrimaha la xiriira maamulka Galmudug barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa koonfur galbeedna isla sidaas oo kale iyadana khataro xoogan ayaa jira iyadoo mas'uuliyiintii hore ee maamulkaasi koonfur galbeed oo ku kala sugan qaybo kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedkaasi ay fariimo kala duwan oo hanjabaado ah u soo gudbinayaan dhinaca maamulka kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya iyadoo intaas oo dhan ay jiraan saaxiibayaal dhaqdhaqaaqyada dadka shacabka ah ayaa si weyn looga dareemaya xaafadaha qaar barakacana waa uu ka sii daraya saacad
saacada ka dambaysa xaafadaha qaarna waxaa la warinaya caawa in aanan lagu sii hoyaadaynin oo banaanka magaalada dadkeedii ay sii galeen wixii kusoo kordha guud ahaana saaxiibayaal umuraha koonfur galbeedna barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya xogahaasi hela muqdisho haddii aynu kusoo gebagabeynana banaanbax weyn ayaa la filayaa in maalmaha aan idhaahday maalinta berita ah oo saacado keliya ay nagaga harsan yihiin uu ka dhaco gudaha caasimadda hanjabaado ayaa soo baxay oo dhallinyarada qaar fariimo ahaan loola wadaagay halka ciidanka booliiskana la tilmaamay in wadooyinka qaar lagu daadiyey sidoo kale kuma eka oo booliis oo nabad sugid iyo military gaar ahaan kuwa booliis iyo militaro ayaana weheliya oo luuq kasta oo magaalada ka mid ah lagu arkaya lama oga waxa dhici doona maalinimada berita hanjabaada dowladda waxaa sidoo kale weheliya hanjabaado kale oo ka soo baxay mucaaradka kuwaas oo ay ku doonayaan in guud ahaan berito aan lagu hor istaagin mudaharaadka ay ku dhawaaqeen ee maalinta berita ee weliba ku beegan 10 bisha oo ah maalintii lagu casuumay kulan ka dhacaya Villa Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda in uu markaasi ka sii baxayo ballamihii iyo casuumadihii uu fidiyey mucaaradka kadib markii ay ku gacan seereen sidoo kalena mudaharaad ay ku dhawaaqeen halkii ay ka qayb geli lahaayeen casuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna saaxiibkiisa Ismaaciil Cumar Gelle ayuu caleemasaarkiisa kala qayb gelayaa gudaha magaalada Djibouti wixii ku soo kordhay guud ahaan arrimaha Muqdisho barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal haddii la dhamaantan la soo gaartay channelkeena subscribe dhaho qaybta hoose ee faaladana aragtideena nagula wadaaga saaxiibadana la sii wadaaga muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro una helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale